waayahay Axmed Laari oo in badan baraha bulshada ka daawatan si toosan u taqaanaan oo kamid ah bahda warbaahinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa markan garabkayga jooga oo ku sugan maalmahan dalka. Axmed Laari soo dhawow, bal ka war inta dalka joogtay maxaa kaaga baxay? bidhaan aad baad u mahadsan tahay. waxaan rabaa halkan inaan kaaga mahadceliyo shaqada wanaagsan ee saxaafadeed ee ka haysid goboladan guud ahaan iyo gaar ahaan goboladan Sool iyo Sanaag iyo Cayn. dad badan waxaa laga yaabaa qurbaha iyo kuwa wadanka joogaba inay ka yaqaaneen inaan arrimaha aad uga hadlayay. waxaana jirta qof walba caqli leh oo garasho leh sabab baa jirta ay u baahan tahay in looga hadlo. waa dhibaato weyn oo kamid ah dhibaatooyinka hadda Soomaaliya ka jira kamid ah waa deegaanka kaliya ay maanta loo yaqaano disputed area oo ka liftay ama region isku haysiga siyaasadeed oo u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland. arrintan hadda ka hadlayso su'aasha aad ugaaska weydiisay ee ahayd maxaa keena dagaalada soo noqnoqda ee deegaankan. waxaa keena Soomaaliya sida ogtay dadku way iska hubeysan yihiin shacabka haddii meeshaasi dawladii jirin. waa sababta loogu baahdo ciidan, waa sababta booliis loogu baahdo, waa sababta maxkamado loogu baahdo ama jeelal lagu xiro. marka haddaysan system dawladeed uusan deegaanka ka jirin uusan ka shaqaynayn waxay keenaysaa marka marba labadii qof oo isku dhaca in la waayo cid kala dhex gasha ama xalisa dhibkuna intaa ka sii bato. marka waxaan markaan rajaynayaa kulley in dhibaatada halkan ka jirto ay hesho dhammaan dadka Soomaaliyeed ee wax garanaya iyo dawladaha ka jiraba in laga caawiyo dadka deegaankani sidoo u heli lahaa xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba. waayahay waa timi in badan baa dalka ka maqnayd dad badan oo ku daawan jiray Axmed Laari waxay dhihi jireen inta badan deegaanadaas uu ololeeyay nabadooda iyo siday xornimo u heli lahaydeen. inta halkan joogtay iyo inta halka lagu soo sheegi jiray si gaar ah maxaa kaaga baxay deegaanada? wallahi walaal horta anigu waan imaadaa ayaamahan dambe sanadkan waan imi sanadkii la soo dhaafana waan imi dhowr sano ka horna baan halkan aan imi laakiin nasiib darro qurbo joogto waxaa ku jirta markay halkan yimaadeen shaqooyinka iyo danahooda halkaas la aldigeed dib bay isla markii u noqdaan iyagoo aan wax badan aanan daraasadeen. xaqiiqdii marka hadda qurbaha qofka uu joogo iyo markuu xagga wadanka joogo waa kala labo. qofka markuu wadanka joogo xaqiiqda taalla ayuu arkaa halka qurbo jooguna uu wax walba ay la fudud yihiin. marka kulley inkastoo hadda wadanka aan hadda animi arrimaha aan u yimidna ay tahay yani waad ii jeedaa maanta macawisna oo xiraa cimaamada oo wataa odayeyn aan arrimahan daneynayay inaan wax badan ka ogaado taladeeda iyo tusaalena waxaan ku kordhiyay dadka bulshada deegaankan ayaa marka dadka qurbo joogta badana xaqiiqda dhabta waxba kama oga wax badanna way la fudud yihiin laakiin xaqiiqdii dhibaato badan baa ka jirta. waayahay Axmed Laari laba awoodood baa hadda wadata awoodii qurbo joogta iyo sidoo kale awoodii saxaafadda adoo labada awoodood boota xagga abaaraha deegaanadan Sool Sanaag iyo Cayn abaara baahsan baa ka dhacay simadu maanta waxay ka hadlayeen abaara ay ahaayeen abaaraha adoo Axmed Laari ahaan saxafi ahaan ku qurbo joog ahaan fariinta qurbo joogtooda maxay idinka qorshaysan abaarahan oo kale hadda ka jira. marka qurbo joogtuna mararka qaarkood waxa laga yaabaa in ay siyaasadda oo ay aad uga hadlaan laakiin wax badan ayaan ka hadlin dhibaatooyinka hadda ka jira wadanka oo kale abaaro. ninban shalay weydiiyay goorma dhulka roob ugu dambeysay markaas yiri sanadkii la soo dhaafay dhowr bilood oo kalena waa la filayaa in sidan sii ahaato dadkiina xoolihii way ka dhamaadeen hadda aragtid dhulka miyiga oo dhan xoolaha oo daaqaya ma jiraan. marka dhalinyaradii iyo dadkii miyiga joogay badidood magaalada ay wada galeen maanta maraan mid magaalooyin kamid ah dhexmaray waxay rag badan oo halkan socda waa raggii miyiga ka yimid. marka dhibaatooyin badan oo aan ogeyn baa jirta. ta kalena dadka qurbaha dhibka haysta waxa weeyaan meeshaas ay dadku degeen gaar ahaan dadka deegaanaadkan degan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn wax horumar ma sameyn karaan sababtoo ah waxa ku dhacay dadka wax la yiraahdo brain drain oo ah dadkii aqoon-yahanada ahaa dhaqaatiirtii injineeradii mutacalimiintii siyaasiyiintii dadkii ciidamada ahaan jiray way ka wada maqan yihiin way ka tageen wadanka qurbo joog weey. marka haddii wadanku marka aqoon-yahankiisii iyo dadkii wax garanaya ay ka maqan yihiin way adag tahay xataa siyaasad ahaan iyo in xal laga gaar. marka haddaan anoo ka faa'iideysanay barnaamijkaaga bidhaan waxaan oran lahaa dad badan oo qurbo jooga isku day aniga sanadkan isku day bal in muddo ah haday suuroodo inaan wadanka joogo wax badanna aan macnaheedu aan kala socdo waxaan rabaa si gaar ah bal arrimahana inaan ka hadlo laakiin insha Allah ku soo celiyay mikrofoonka. saxmigaag iyo deegaanadan colaad baa ka dhacday
maantana shirkii nabadaynta waad fadhiday bal ra'yi ahaan maxaad ku darsanaysaa isleedahay colaadda deegaanadan way kusoo noqonaysaa maxaad tala ahaan ku darsanaysaa waaya horta marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dadkii waxgaradka oo maanta halkan iskugu yimid gaar ahaan isimadii halkan joogay ka soo jeeda dhinacan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ama beesha aadka halkan ugu yimid dadka deegaanka Boocame iyo Ugaaskaba kuwaas oo soo jeediya dadka reer Boocame nabad in la qaato kala hadlay sidii dadka ugu diyaar garoobi lahaayeen inay ka qayb qaataan shir la iskugu iman doono oo nabadayna oo beelo iskugu iman doonaan anigoo arrimahaas kullee ka duulaya waxaan rabaa dadka qurba joogta ah warkuu ku yar yahay war fiicanna ma helaan waxaan jeclahay inaa warka aad gaarsiisaan hadda adiga caawa maanta media halkan nagala jooga in nabadana laga shaqeeyo dalkana uu u baahan yahay horumar sidoo kalena deegaanka dhibka sidaan hadaaya sheegay waxay la wadaagaan oo hadda waxa dhibku dhex maray degmada Boocame iyo degmada Garowe ahaayeen degmada Garowe waxaad moodaa system dawladeed ayaa ka jira oo Puntland ah laakiin deegaanka Boocame waad aragtay dhibaatooyinkii hadda ka dhacay sida ay dadkii u saameeyaan dad badan baa ganacsiyadoodii ka soo tagay dad badan baa aaday laascaanood oo aan iyagu deegaanku ahayn Garowe deganaa dhibaatadaasi marka saameyn badan bay bulshadii dadka deegaankana ku samaysay waxaana keenaysa dawlad la'aanta dadka deegaankan waa inay iyagu marka ugu horeyso mas'uuliyad xil iska saaraan inay amnigooda iyagu sugan karaan degmadan waxay u baahan tahay Boocame maamul bay u baahan tahay waxay u baahan tahay ciidan booliis waxay u baahan tahay ciidan military oo amnigeeda ilaaliya waxay u baahan yihiin dadka deegaanka inay ilaashan karaan dhulkooda maamul iyo system dawladeed ama ay iyagu ay dhisteen ama ay raali ka yihiin in uu jiro arintan colaadda hadaad fiirisid waxaad moodaa dhibka jira waxa weeye waxa saameynta kula cidii dawladda ka ahayd oo meesha ka agdhaweyd ayaa qaadanaysa eedaha dadka qabaa'ilaadka waa dad wada degi jiray waa dad isdhalay laakiin maamulka gaar ahaan maamulka Puntland ayaa dadka badidii ku eedeynayaan dhibkan inuu ay xalin weyday markii hore markii la isku qabsaday iyo sidoo kale inay colaad si degdeg ay u joojiyaan marka maadaama wada dhalashay iyo deegaan laga hadlay Puntland dadka Sool Sanaag iyo Cayn waa la wada dhistay Garowana waa meel la wada degan yahay baahayd maxaa u sameynaysaa dadka deegaanadani inay uga soo tageen Garowe maadaama meel la wada leeyahay wada dhalasho iyo xigtiyo xigaalba ka dhaxaysay sababahay uga soo tageen dadka deegaanadani ama fariinta u dirsan maxay tahay wallahi waxay ila tahay horta maamul xumo weeye maamulka hadduu sidiisa uusan dhaqmin nidaam professional ah tusaale ahaan qofka dadku dembiga ma wada gelin hadday wax dhacaan dad gaaraa galay markuu dhibaato dhacdo dawladda haday meesha ka jirto anigu hadda Mareykankan ka yimid waa in baaritaan la sameeyaa waa in qofkii dambiilahan la yiraahdo qofka dambigaas uu galay waa qof la doonayo dhibaatana meesha ka dhacday dhibaatada ka dhacday noocaas ahayd eedda ugu weyn waxaa leh maamulka iska leh sideedaba halkan dhibaatada halkan ka dhacday anigu horta arintaas su'aashaad weydiiseen waxaan islahaa 91dii hadaad ogtahay taariikh baa ka dhacday Soomaaliya taariikhdii waxay kaliftay dad walba deegaankoodii inay dib ugu noqdaan Puntland markii la samaystayna dadka caasimadda ka wada dhigtay isma lahayn sanadkan 2002 ayaa dad kamid ah ay waxay uga tagi doonaan amni darro oo saxiiga naftigeeda nooc min 91 inkastoo 21 iska ahayd Soomaaliduna circle-ka uu iska wareegaa marka taasi waxay tahay dhibaato dadkan Boocame waa degmada ugu xigta Garowe waa dad noloshoodu dabcan kuwan iyo kuwaba isku xirayd waa nasiib darro dhibkii dhacay awgeed inuu sababo dad badan ganacsigoodii inay kaga xirmo Garowe waxaa nasiib darro sidaas oo kale dad aan dagaalkaba ku jirin ama dhibkaba ku jirin in aamno ama saameyn ay halkaasi ka saameysay oo dhibaato loogu geystay magaalada caasimadda ahayd waxaa iyadana dhib ah in maxaan ku raahdaa dad ganacsi ku lahaa oo degaan ah in maxaan ku yiraahdaa sidoo kale ganacsigoodi uga xirma arrimahaas maamulkaana eedaa yeelanaya iyo cidii dawladda ka ameesha iyo sidaas oo kale waxa ilaa ay hadda sidaad ogtahay abwaan jaamac kadiye wiilkiisa in lagu waxyeeleeyay waliba haddana meel ka tirsan deegaanka Boocame bixinaya oo dadkii markay nabad qaateen shirkii hadda ayaantii dhaweyd kadib inay haddana dhacday la dilay la dhaawacay dhaawac xun loo geystay ninkaas taahana waxay sidoo kale haddana fiiri dhibkii hore waxaa keensaday baa la yiri maamulkii oo aanan soo qabanayn hadda dhib baa dhacay qofkii dilay ninka xabadda ku dhuftay lama hayo ilaa iyo hadda sida ugu maqaalada waana odayaashu waxay kala hadleen qodob kamid ah hadii la iskugu yimaado shirka nabadeynta arrimaha lagaga hadli doono bay kamid tahay because shirkii harwanaag waxa lagaga hadlay cidii jibisa nabadaas in ganaax uu ku dhici doono marka anigu kulli waxyaalo aan la siyaasadayn baa jirta
waxaa wanaagsan dadka shacabka ah ee dhibaatada ku dhacday waxay ila tahay in ay ka fakaraan dan waxay ugu jirtaa dadka si nabada inay ku wada noolaadaan eedana waxaan kulli aniga shakhsi ahaan aan saarayaa dawladda aan saarayaa waliba maamulka Puntland oo iyagu meesha ka dhawaa waxaan ugu baaqayaa dadka ama dadboocama ka soo jeeda ama dadka dhinaca kala garowe inay nabad sameeyaan sidoo kalena gobolkan ama Sool ha noqoto ama degmada Boocam ha noqoto dadka degan waxay tabanayaan in dhulkooda iyagu xaq ay u leeyihiin meeshay dooneen inay magaaleysan karaan ay beera ka samaysan karaan maadaama ay tahay degaankooda gobolada weeye wuxuu gobolka Nugaal iyo gobolkan Sool xuduud baana jirta dawladda Soomaaliya u dhigtay qaladaadka xataa hadda jira maamulka keenay sababtoo garowe hadaad fiirisid gobolka Nugaal waxay kaga taalaa meel geesa haddana maamulku waxa la yiri dhinac walba 40 kilomitir xilliga Faroole waa in loo gudbiyaa loo durjiyaa laakiin gobolkan Nugaal dhinaca gobolka Sool 40 kilomitir garowe uma soo bixi karto sababtoo garowe waa xuduud ahayd waliba waxa haddana qalad kale u dhacay xilliga hadda madaxweyne Dani uu xukunka qabtay in la soo durjiyay controlkii oo laga soo qaaday halkii hore u ooli jiray oo la keenay dhinacan meesha la yiraahdo gobolka Sool gudihiisa la keenay taasoo marka noqonaysaba magaalada garowe controlkeedii inuu bayaalaba halkii xuduud u ahayd labada gobol marka maamulka Puntland sidoo kale kama shaqeynin in deegaankan Boocame ama Taleex deegaanaadka la degan ay ka shaqeeyaan iyaga horumarkooda haday noqoto maxaan ku raahdaa ciidamo fiican inay joogaan kama ayan shaqeyn taa marka waxay keentay dhibaato in dadkii shacabka ahaa oo isku dhaco aniga sida ay la tahay marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waraysigaaga kulli baaqeygana waxa weeye inaan kula talinaya dadka shacabka ah inay nabad ku wada noolaadaan isimada dhinaca garowe odayaashuna waxay ku taliyeen nabad qoladan dhinacaadana waxa lagu taliyay nabad waxaan rajeynayaa labadaba inay nabad qaataan nabadana la wada ilaaliyo dhinaca Boocame wax badan oo ka hadlaysan oo dhinaca maamulka ahna iyagu naftigoodana ay iska hagaajiyaan marka aad iyo aad baan adiguna kaaga mahad celinaya waraysigaas saaxiib waayahay kaasi wuxuu Axmed Laari oo hadda dalka u yimi sida uu ka shaqeyn lahaa arrimaha bulshada iyo sidoo kale horumarka